maxkamadda darajada koowaad ee Puntland ayaa xukunno dil ah ku riday 5 eedeysane oo lagu soo eedeeyay 3 qarax. sidoo kale maxkamadda ayaa u fariisatay 19 eedeysane oo 9 kamid ah xorriyadoodii dib u siisay, halka kuwii kalena lagu fuliyay xukunno kala duwan oo xabsi ciidana. gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ee 5 gobol Puntland, Cornel Cabdifataax Xaaji Aadan ayaa saxaafadda u akhriyay xukunnada kala duwan ay fuliyeen. Libano waa dawladda Puntland iyo shacabka Soomaaliyeed argagixiso xeer nambartan iyo shariicada islaamka. maxkamaddu markay dhageystay xafiiska xeeraalinta maxkamaddu markay dhageystay qiraalka eedeysanayaasha maxkamaddu markay dhageystay difaaca qareemada maxkamaddu markay dhageystay ayna ku qanacday qiraalka ay bixiyeen. maxkamaddu markii ay dalacatay shariicada islaamka iyo waxay ka qabto eedeysanayaasha lagu soo eedeeyay qaraxii gaariga dhikilada ah xukun maxkamadeed. maxkamaddu waxay ku xukuntay shariicada islaamka. Abbas Ibrahim Yare Aadan ina Khadiijo Aadan isaaq 26 jir ah ku dhashay magaalada Baydhabo. maxkamaddu waxay ku xukuntay dil toogasho. Ibrahim Maxamed Canshuur Axmed ina Khadiijo Cabdullaahi Ali 20 jir ah ku dhashay Afgooye. maxkamaddu waxay ku xukuntay dil toogasho. Axmed Awil Aadan ina Nadiifa Barrees 25 jir ah ku dhashay Wardheer. maxkamaddu waxay ku xukuntay 5 sano oo xarig ciidan ah. Xareed Xasan Xuseen Ibrahim ina Asli Baashane 32 jir ah ku dhashay Beled Xaawo. maxkamaddu waxay ku xukuntay 5 sano oo xarig ciidan ah. maxkamaddu markii ay ku qanci weyday eedda xafiiska xeeraalinta waxay u soo celisay xorriyadooda eedeysanayaasha kala ah Axmed Maxamuud Axmed Shaamil ina Xaliimo Cilmi ku dhashay Hargeysa. maxkamaddu waxay u soo celisay xorriyadiisa. Faysal Idris Cilmi ina Maryama Faahiye 28 jir ah ku dhashay Boora. maxkamaddu waxay u soo celisay xorriyadiisa. Cabdisalaam Axmed Xaaji Siyaad ina Fawsiyo Sheekh Axmed 7 jir ah ku dhashay Kuwait. maxkamaddu waxay u soo celisay xorriyadiisa. Cabdixakiin Xuseen Xasan ina Shukri Xasan 30 jir ah ku dhashay Muqdisho. maxkamaddu waxay u soo celisay xorriyadiisa. Isaaq Xuseen Xasan Cabdi ina Sawda Cabdi Idris ku dhashay Baydhabo. maxkamaddu waxay u soo celisay xorriyadiisa. Saciid Cali Barre ina Xaawo Warsame 31 jir ah ku dhashay Muqdisho. maxkamaddu waxay u soo celisay xorriyadiisa. lixdaas waa lixdii isa soo dhiibay sida ay cadeeyeen moobiladuna ku jiray Daacish ay ku xukuntay dalka toogashada ah. sidaa darteed maxkamaddu markii ay ogaatay in ay soo dhiibeen waxay u soo celisay xorriyadooda. qof allaale qofkii soo dhiiba si dawladdu ballan qaaday waa xorriyadiisa loo soo celinayaa. Maxamuud Jamaal Maxamuud TV-ga caalamiga Hon Cable magaalada Boos.